gabadhii ninka cuntada ka sugaysa subaxii buu ka tagay galabkii xilli qoraxdu sii dhacayso buu yimid isagoo nin dhulka ku jiidaya war aabe cuntadan ku dirsaday qofkani muxuu yahay qofkan wuxuu yiri inuu cunto wataan u maleynayay waan dilay markaa nafta ka jarana dee waxaan arkay inuu cunto wadanin gabadhii waxay tiri dee bas marka haddaan caawa noolaano bari waan dhimanaynaa waa inaan dhimanno uun xal kale ma leh dabkii bay kolba wax ku ridaan meeshanay iska fadhiisteen dabkii bay iska kulaan dee way seexan kari waayeen marka hameenka gaajo siday u fadhiyeen meeshii ay u gaajoonayeen unbay hameen barhkii bilaabeen baa lagu leeyay saas inay labadoodii isu eegaan kolba ninkii eegaa uun Alexanderkii ninkii meydka unbu fiiriya gabadhii unbu fiiriya gabadhuna ninkii bay fiirisa ninkii kale unbay fiirisa wuxuu yiri waxaan ku fikiray ma ku fikiraysaa maxaad ku fikiraysaa wuxuu yiri dee caaw bas mar dambe uma noqonayno qaladkan oo dambana mar kale ma galayno laakiin baahi intaan u dhiman lahayn caaw bas qofkan aan hilibkiisa cunno aan dubana wada qofkan dabkan intaan ku dhaxrino gabigiisa dubana aan cunno kadibna markaasaan dee waxaan helaynaa tamar iyo awood aan ku socono ku lugayno meel un baan markaa aadaynaa saas saas aan yeelno qofkii inta gabigiisiiba la qabtay oo la googooyay baaba la dubtay hilibkiisa ninkii meydkaha hilibkii way cuneen ilaan gaajo haysay weligoodna hilib bini aadan may cunin gaajo saa'idina way haysay soo maaha cimrigood adduunyada intay ku noolaayeen cunto ay cunaan tii ugu macaanadaba u noqotayba qofkii hilibkiisii mid kasta midkii kale unbu sidaa u eega cunto saanu macaan weligay ma cunin aniguna cunto saanu macaan weligay ma cunin